usbuucii dhamaaday hoggaamiye-yaasha uga awoodda badan adduunka ayaa si aamusan u qiray arrin walaac leh. nidaamkii adduunka ee ilaalinayay nabadda tan iyo dagaalkii labaad adduunka ayaa laga yaabaa inuu burburayo. sanad kasta hoggaamiye-yaasha caalamka, khibrada ugu sareeya amniga iyo warshadaha difaaca ayaa ku kulma Munich Security Conference si ay uga wada hadlaan khataraha amni ee ugu waaweyn ee dunidu wajahayso. laakiin sanadkan wax weyn baa ka duwan. arrin ay hoggaamiyaal badan si joogta ugu soo celceliyeen waxay ahayd nidaamkii wada shaqaynta ee la dhisay kadib dagaalkii labaad adduunka. nidaamka kaliya ee dunida ka ilaaliya inay noqoto sidii duurjoogta ayaa hadda u eg inuu burburayo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay Yurub inay isku diyaarinayso dagaal suuragal ah sababtoo ah qaab dhismeedyadii hore ee amnigu way sii dabargo'ayaan. sidoo kale xogayaha Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay qarnigan cusub ilbaxnimada reer galbeedku wax badan ayay bedelaysaa. ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay ka fiirsanayaan kordhin weyn oo ku saabsan kharashaadka militariga si ay ula jaan qaadaan khataraha sii fidaya. Jarmalka horeba wuxuu ka bilaabay inuu dhiso mid ka mid ah militariga ugu awoodda badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. caalam waxaynu galnay aan waxba la filin karin, wax weyn inay isbedelayaan ayay u eg tahay. waxaa jira tweet si xoog leh ugu faafay baraha bulshada gaar ahaan goobta X oo ay daawadeen in ka badan 5.7 milyan ayaa wuxuu noqday viral. tweetkan oo uu soo dhigay Ray Dalio qoraaga buugga Principles for Dealing with the Changing World Order. Ray Dalio wuxuu ku doodayay inaynu gelino marxaladii ugu dambeysay wareeg taariikhi ah oo marar badan soo noqnoqday ka hor intuusan bilaaban dagaal weyni. wuxuu sheegay in ka hor dagaalkii labaad adduunka ay jireen arrimo la mid ah kuwa aynu maanta arkayno, sida qalalaase dhaqaale oo weyn, xasilooni darro gudaha ah, dalal u janjeera qarannimo xad-dhaaf ah oo dimuqraadiyadii habeeraatay meesha ka saaray, sida Mareykanka oo isticmaalaya ICE oo musaafirinaysa dhammaan dadkii immigrantga ahaa ee xataa asylum seekerka haystay, iyo ciidamo military xad-dhaaf ah oo looga isticmaalay bartamaha magaalooyinka waaweyn halkii laga isticmaali lahaa police. dagaal ayaa qarxay oo noqday waxaan laga baaqsan karin, iyadoo qaar ka mid ah khubarada amnigu ay ka soo horjeesteen arrintan kuna sheegeen wax aan suurtagal ahayn. sidoo kale waxaa jira madax iyaguna khubaro ku ah arrimaha difaaca iyo amniga oo difaacay fikirka Ray Dalio inuu dagaal weyni bilaabi karo, iyagoo sabab u ka dhigay in kharashaadka dawladdu isticmaalaan militariga uu sii kordhayo, kaas oo gaaray heer record aan hore u dhicin. kharashaad qiimihiisu dhan yahay $2.7 trillion ayaa sanadkii 2023 ay dawladda caalamku ku kharash gareeyeen ciidamada militariga. sidoo kale dunidu waxay aragtay tiradii ugu badnayd colaadaha dawladaha tan iyo dagaalkii labaad adduunka 1941 taasoo macnaheedu noqonayo in xaalado badan isbedelay. madaxweynaha Jarmalka ayaa wuxuu meesha ka saaray wax la yiraahdo America First. sidoo kale xiriirka u dhaxeeya Yurubiyaanka iyo dawladda Mareykanka muu noqon mid sidan u qalabsan tan iyo dagaalkii labaad adduunka, balse hadda saad la socotaan Donald Trump wuxuu rabaa inuu qasab ku qaato Greenland. wadamada Yurubiyaanka ay ka soo horjeedaan una horeyso dawladda Denmark. waad mahadsan tahay. fadlan fiidowga share garee, asxaab badan gaarsii. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay akoonka soo follow garee. aad baad mahadsan tahay.